Maxaa dhici kara haddii maskaxdaada, codkaada, xogtaada iyo go'aamadaada la xakameeyo? Ma adiga ayaa leh mise sirdoonka macmalka? Maamulaha guud ee shirkadda OpenAI ayaa shaaca ka qaaday in wada sheekaysigaaga ChatGPT aan loo helin sharci ahaan sida sirta hadalka oo loola yeesho sida dhakhtarkii ama qareen. Wuxuu qoray maamulaha Sam Altman, ma hayno xaq sir ah sida inaad la wadaagto xaaladaada caafimaad sidii dhakhtarka amba oo aad la wadaagto xaaladaha qaas sidii qareen. Waana arrin aad u qaldan. Mideeda kale, ma ogtahay in AI-ga la yiraahdo ChatGPT uusan kaga jawaabin kaliya su'aalahaada, balse uu saameyn ku leeyahay habka aad u fikirto. AI wuxuu bartaa sida aad u fikirto, waxaad jeceshahay, waxaad neceb tahay iyo habdhaqankaadaba. Markii uu xogtaas u helo, si tartiib ayuu kuu saameyn karaa, isagoo si dadban kuu yeelaya inaad rumayso waxyaabaha aad horay u diidi lahayd. Ma dareentay mar aad maqashay Waa sax sababtoo ah ChatGPT baa yiri. waxaa laga yaabaa in fikirkaaga laga adkaaday adigoo aanad ogeyn. Sidaa darteed, maskaxdaada adigu maamul. Ha ogolaan in AI uu kaa dhigo qof uu asigu leeyahay. Ka fiirso waxyaabaha aad u rabto, ka baaro macluumaadka, kadibna adigu go'aan gaadh. Ma ogtahay in tiknoolajiyada ChatGPT-ga loo adeegsan karo wararka been abuurka ah kuwaasoo u eg warar dhab ah? Waxaa jira awood weyn oo AI ay u leedahay inay curiso qoraalada, maqaalada, warbixinada iyo xitaa hadallada siyaasadeed iyadoo aan wax xaqiijin loo marin. Hadda bal sawiro qof caadi ah oo adeegsanaya ChatGPT si uu u qoro warar been abuur ah, kuna soo bandhigo baraha bulshada, kuna lifaaqo sawiro been abuur ah oo AI uu sameeyay. Dad badan ayaa rumaysan sababtoo ah xogtaas waxay u muuqataa mid dhab ah. Sanadihii u dambeeyay waxaa dhacay kiis been abuur ah oo AI loo adeegsaday in lagu sameeyo fake news, warar been abuur ah. Warar been ah ayaa loo sameeyay siyaasiyiin, madax amba xitaa dad caadi ah iyadoo loo adeegsanayo cod la mid ah kan dhabta ah ama muuqaal aan la kala saari karin. Inta badan dadka dhibta la gaarsiiyo ma helaan wax cadaalad ah. Khatarta laga dhaxli karo ChatGPT waxaa ka mid ah dadka ayaa lagu dhaawici karaa sharaf ahaan, nafsad ahaan amba xagga sumcadda. AI waa qalab, balse haddii loo isticmaalo si xun wuxuu noqon karaa hub khatar ah oo lagu burburin karo maskaxda iyo amniga bulshada. ChatGPT wuxuu awood u leeyahay inuu si degdeg ah kugu abuuro qoraallo, warbixino, sheekooyin. Laakiin maxaa dhacaya haddii xogtaas aysan sax ahayn? Marka dad aanan aqoon durugsan u lahayn cilmi baarista ay adeegsadaan AI si ay xog u helaan, waxaa dhici kara inuu si qalad ah u siiyo macluumaad aanay jirin. Tani waxay si gaar ah halis ugu tahay ardayda iyo dhalinyarada isticmaasha ChatGPT si ay ugu diyaariyaan warbixino kuwaas oo laga yaabo inay ku saleysan yihiin xog qaldan. Tani waxay si gaar ah halis ugu tahay ardayda iyo dhalinyarada isticmaasha ChatGPT si ay ugu diyaariyaan warbixino kuwaas oo laga yaabo inay ku saleysan yihiin xog qaldan. Waxaana lagama maarmaan ah in la hubiyo xogta uu bixinayo AI ka hor inta aan la adeegsan si looga fogaado faahfaahinta been abuurta ah. Ma isweydiisay maxaa dhici kara haddii aad AI la wadaagto xogtaada gaarka ah? Inkastoo ChatGPT uusan keedin xogta isticmaalaha si toos ah, haddana haddii aad si isdaba joog ah ula wadaagto xog muhiim ah sida